بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaasha sharafta leh waxaan doonayaa maanta inaan wax yar uga taataabto isticmaalaadka bitoorakan la yiraahdo Astra Korea ee yar ee gaasoolinka ah. bitoorakan aad aragtaan waxaa loo isticmaali karaa oo uu kicin karaa qaybo ka mid ah qalabka isticmaala korontada. waxa loo adeegsan karaa laambado badan. marka waxaan doonayaa khiyaaray inaan idinka siiyo muxuu ahaay warbixin kooban oo ku saabsan bitoorakan inta aan ka aqaano cilmigaygu gaarsiisan yahay. marka horeysa marka bitoorka lagu keeno waxa ugu horeeya oo aad haddii la koreeyahay ku shubaysid waxa weeye shidaalkii oo batrool buu qaataa. waa kan meeshii batroolka laga shubayay waa halkan shaandha ku jirta. shaandhadaasi waxay ka hortagaysaa in waxyaabaha wasakhda ah oo mitoorka gala aanay raacin mashiinka, aanay batroolka raacin tuubada batroolka, oo aanay qaybta mitoorka u gudbin generatorka, taasoo caqabad noqonaysa. waxaa kaloo lagu shubaa olio. oliyada waxaad kaga shubaysaa waa halkan. oliyada meesha aad kaga shubaysaa waxa weeye bahalkaasaad furaysaa. marka aad furtid oliyada qudheeda halkaasaad kala soconaysaa. dhinacu kaga yaalaa leefalka oliyada iyo wax walba. marka hore oliyo kuma jirto, tan lagu soo tijaabiyay ma aqaan, laakiin waa kaa bahalka oliyadu halkaasaad kala soconaysaa. haddii la kuurayahay madowga oliyadaasi wuxuu sheegayaa in oliyada muddo la isticmaalayay heer beeleedahay marka lagaga bedelo. allahu mustacaane. marka waxa weeye oo kale labada marka aad ka tijaabisid waxaad samaynaysaa, waxaad ku furaysaa shidaalka intaadan shidin. waa tan qasamada tan inay idin muuqato waa filayaa. waa taa qasamadii lagaga furi jiray maaragtay muxuu ahaay waxa la yidhaahdo batroolku. qasamadaasaad kaga furaysaa. qasamada markaad kaga furtid waxaad ku furaysaa qaybta caburinta. intaa markaad samaysid xaggan switchka abaad imanaysaa. marka horeysa waa off, waa kaas. dabeedna switchkaasaad celinaysaa, on baad ka dhigaysaa. marka hore sidaa weeye, on baad ka dhigaysaa. markaa baad istaaraysaa. markaa wax walba ku diyaarsan yihiin. waa tan meeshii laga istaari jiray. intaa kadib markii aad istaagtid mitoorkii anigoo tusi doono, waxaad celinaysaa tan oo ah muxuu ahaa baashii maaragtay caburinta. halkan waxaa ku jirta khashaafadii, isagoo shidan baad tan celinaysaa. halkan waxaa ku jirta khashaafadii, waad ka ilaalinaysaa in meel ciid leh ama boor uu taabto. waa sankii ka neefsanaya mitoorku. intaa kadib hadhow marka aad daminaysid shaqada koowaad oo aad qabanaysaa waxa weeye meeshii onta ahayd baad off ka dhigaysaa. inta uu shidan yahay markaad xariga gelisid bareysada kuwa kan labadii meelood bareysooyinka laga gelin jiray. labadii meelood bareysooyinka laga gelin jiray waa kuwaas aan gacanta ku hayo. markaad bareysooyinka gelisid waa kan meeshii dabka laga sii dayn jiray. dabka halkaas laga sii dayriyay. marka waa kaa watankaas laga sii daayay dabka. on iyo off buu leeyahay. intaa kadib xasanaysa marka hadhow aad daminaysid shaqada koowaad aad qabanaysa way halkana off ka dhigaysaa. off markii aad ka dhigtid batroolkii baad xiranaysaa. kor baa loo xidha, waa kaa carabka halka ka muuqda weeye. marna hoos buu furmaa, waa kaa. marna kor baad u xiraysaa. intaa markii aad qabatid dabkiina waad ka jaraysaa oo batanka ayaa tusaayay. marka bahalkani qofkii u isticmaala sida saxda ah gacan ku hayna u sameeya wuxuu intifaacsan karaa muddo dheer. allahu mustacaan. waan i tusayaa marka aniga oo shidaya oo maraya dariiqooyinkii. marka koowaad waa kan waad shidaysaa. on baad ka dhigaysaa. shidaalkii baad furaysaa. anigaa furay xaggii caburinta
baad xaggaa u leexinaysaa bidixdaada ah kadib waad istaaraysaa waan istaarina marka dabeedna koronto dabkii hadduu joogo waa ka jaraysaa inta aan demin shidaalkaagiina waad xiranaysaa inta way waxyaabaha kale oo loo isticmaali karaan insha Allah tacaala waan idin socodsiinaya wasidaas iyo assalaamu calaykum fadlan subscribe saar share garay si ula socdaan dad badan oo Soomaaliyeed bahalkan isticmaalaadkiisa iyo qalab kale oo koronto badan oo insha Allah idin soo bandhigi doono هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم subscribe and share and like وان السلام من الأمان